maanta waxaa halkan idinku soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan allah naxariistee weriye duniya muxidiin nuur oo ku geeriyootay magaalada muqdisho sanadkii 2005 juun 15 sano ka hor waxay ahayd maalin u bilaabatay maalin mugtay dhammaan warbaahinta soomaalida kadib markii duniya ay noqotay qofkii ugu horreeyay oo weriye ah oo lagu dilo dalka Soomaaliya. duniya waxaa dishay gacan ka xaqdaran balse 15 sano kadib weli kama go'in qalbiyada weriyaashii iyo dadkii ay la shaqeyn jirtay. maanta waxaa halkan isugu yimid weriyaal dhowr ah oo raba inay bal ka sheekeeyaan sida ay wax u dhaceen iyo wixii ku yaqaaneen duniya muxidiin. bal marka ugu horeysa calan maxamed yare oo maalinta la socotay duniyo gaarigii ay saarneen ee xabaduhu ku dhaceen oo nooga sheekaysa waata. anigu waxaan ahaa qofkii ugu dambeysay oo duniyo oo nool arkay. waxay ahayd xilli subaxa waxaan ka baxnay xarunta shirkadda warbaahinta Honafri anagoo shaqo u soo baxnay oo ah 2 gabdhood oo reportero ah oo shaqo u soo baxay. waxaan aadnay dhanka iyo wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo markaas la sheegay in ay dhibaatooyin ka jiraan oo maleeshiyaad halkaasi ay fadhiisin ka dhigteen oo isbaare ay dhigeen oo ay u diideen dadkii shacabka ahaa ee ka imaanaya Afgooye ee qudaarta iyo caanaha iyo xoolaha keenay inay magaalada soo galiyaan dadkii magaalada ka baxayn dhankaas ay u gudbaan. marka xaalad cakiran ayaa halkaas laga soo sheegay sidaas darteed ay aniga duniya u tagnay Allah u naxariistee. goobtii markaan tagnay waxaan si toos ah live u soo galnay labadeenaba oo aan la soo xiriirnay isagana Allah u naxariistee walaalkeen Mahad Axmed Cilmi oo asagana sidoo kale gacan ka xaq daran ay Muqdisho ku dishay. ilaahay u naxariistee labadoodaba. markaan meesha tagnay si toos ah Mahad u soo wacnay duniya ku horeysay waxay gashay live idaacadda Capital Voice barnaamijka Muqdisho iyo maanta iyadoo markaasi ka hadashay bini'aadanimo xumada meesha ka jirta iyo dadka danyarta ah iyo dhibaatada ku haysata iyo hooyooyinka qudaarta soo safarsaday oo qudaartii oo dhan qoraxda ay ka hadlaysay oo maanta aan ilmahooda u haysan waxay ku qadeeyaan oo saaka u soo shaqo tagay inay suuqa bakaaraha nolol maalmeed ka soo sameeyaan iyo weliba dadkii dhibaataysnaa iyo dad waayeel ahaa. adiga xaaladii nololeed ee adkeed ee xilligaas ayay si sawir ka bixinaysay iyadoo qadka taleefanka barnaamijka Muqdisho uga qayb qaadatay. sidoo kale aniguna barnaamijkan ka qayb qaatay markaas anigoo ka eegay dhanka ammaanka. markii aan live-kii dhameysanay waxaan bilownay inaan wareysiyo qaadno si wareysiyadaas aan qaadnay qofkeen oo news uga sameeyo markii aan xaruntii Honafri ku laabano warka soo galay 2 duhurnimo. wareysiyadii markaan bilownay durbadiiba Allah u naxariistay duniya muxidiin nuur waxaa gala dareen ah in meeshan aysan xalkeeda fiicnayn. waxay aragtay dad nafar muuqaya waxay ugu tiri canab meeshan safe maaha inaan sii joogno waa inaan ka tagno. si degdeg ah ayaa meesha uga dhaqaaqnay gaarigii aan la soconay ayaan wiilka nirina bixi. wiilkii laftirkiisa wuu shakiyay wuuna arkay dad badan oo yimid oo la hadloo leeyahay anagana la raadinayo arkay. marka meesha aad ay u saxmad badneed. gaarigii markaan raacnay aniga wiilku waxaan ka codsaday inaan Muqdisho aadno. wiilku wuxuu ugu yiri hadaan dhankaas aadno dareen baa gali karo oo waa la idin dili karaa dhanka Afgooyaan aadayna oo soo saantiranayna kadib aan xamar soo aadayna. baabuurkii markuu saan u dhaqaaqay wax yar markuu socdayba oo anaga aan sinir alxamdulillah safe aan hamardan gaariga soo galnay waxaan arkay wiil dhalinyaro ah oo da'diisa 25 ilaa 30 jir ah oo dhinaca bidix naga soo galay oo qorigina ammaanka furtay oo qaylinay aad u qaylinay. markaan aragnay ana qaylaan bilaabay duniyana qaylay bilowda Allah u naxariistee. marka ma xasuusan karo hadaladii ayagu ay lahaayeen maadaama aniga laftirkayga aad aan u baqay markaan arkay inuu qoriga nagu soo taagay. markaas gaariga inta madaxa kala baxay Allah loo hanadilo war gaariga istaajiyay Bashiir oo gaariga istaajiyay wiil gaarigooda Allah u naxariisto asaga wuu dhintaa la igu dhahay oo xilliga Itoobiyaanka la dilay. meesa dhicin xabadii nagu soo furay
daaqadii aniga gaariga aan ka saarnay ka soo galeen Allah naxariistay dunya ku dhaceen qayladeedii badneed way ila hadashay waxay u tiraan maxbadda adiga may kugu dhacday intaas markay ay tirina ayadiyaaba dareenka xanuunka gaaray way qabsatay xoog ay qabsatay dhuunta ay qabsatay wayna dhacday darbadii waa soo qabtay way dabacday iyadana ani markaas weligii qof dhinta ma arkin waa rumeysay way wiilku wuxuu dhahay gabadha naftaa ka baxday ana waa rumeysay way gaarigana xoog u waday baabuurka dhinaceedii soo maray waa qabtay waa qabo waaye ani way qof dhintay oo hadda kula hadlaay waa rumeysay way xaalad adag ay ahayd dan ilaahay u naxariisto asay duniyo ku dhimatay markana waxaan nala daawataan wariyaashii ay soo shaqeeyeen Allah u naxariistay dunya muxudiin nuur shakhsiyadeeda iyo taariikhdeeda iyo intay ka xasuustaan Allah u naxariistay walaashay dunya muxudiin nuur waxaan isbaranay dabayaaqadii sanadii 2002 xilligaasi oo aan ka wada qayb galaynay tababar dhanka saxaafadda ah oo lagu qabanayay xarunta shirkadda warbaahinta Horn Africa muddo 2 bilood ah ayaan tababarkaasi wada qaadanaynay aniga iyo walaashay dunyo markii tababarkii uu noo soo idlaadayna waxaan nasiib u helnay aniga iyo walaashay dunyo inaan ka mid noqono shaqaalaha shirkadda warbaahinta Horn Africa waxaa xusid mudan in maalinkii waqtigeeda ugu dambeeyay teeda ay gashay inay u baxday inay ka soo waranto wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye gaar ahaan wadada Muqdisho soo gasha oo jidgooyo la dhigay gabi ahaanba halkaas laga joojiyay inay soo gudbaan gaadiidkii ganacsiga yaryar caanaha iyo qudaarta ka keenaya gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Afgooye iyo degmooyinka ku dhow waxaana halkaas u aaday inay ka soo waranto oo ay isla markaas soo gudbiso codka dadka ganacsatada ah ee cabanaya ee dhibaatooyinka qaba marka waxaan leeyahay markasta waxa ay diiradda saari jirtay arrimaha bini'aadanimada oo waxa ugu muhiimsan ee qofka wariyaha ah oo ku caawin kara dalkiisa iyo dadkiisaba inay tahay waana arrin runtii wax badan loogu degan jiray Allah u naxariistay wariyay dunya muxudiin nuur oo ka tirsanay shaqaalaha Capital Voice isla markaana aan wadaag ahayn asxaab isku dhowna aan ahayn geerideedu waxay noo taabatay si isku mid ah inkastoo dadka ay kala darnaayeen murugadan waxa ay aan la qabnay dhammaan dadka reer Muqdisho oo maalintaas maalin madow ay u ahayd aad bay u xanuun badan tahay weliba aad bay u xanuun badan tahay in qof aad walaalo tihiin oo aad goob shaqo u soo wada tagteen in geeridiisa lagu sheego runtii Soomaalidu waxay tiraahdaa waxyaabaha mawtul fajaha ah kidiska ah ama qofka aan xanuunkiisa lagu soo sheegin isla markaasna aanan xaaladiisa lala socon ee geeridiisa laga war helo waa mid xanuun badan dunya muxudiin nuur ilaahay ha u naxariisto waxay ahayd gabar walaashay ah shaqo wadaagnahay weliba xilligaas ay geeriyoonaysay waxay ahayd gabdhaha ugu firfircoon ee mustaqbalka saxaafadda kale iyo nolosheeda inta u dambeysayba dunyo waxaan isku baranay markii ugu horeysay seminar ka socday xaruntii shirkadda Horn Africa ee magaalada Muqdisho oo muddo 2 bilood halka ka socday oo aan ka xasuusto hay'adda Novib iyo Horn Africa iyo hay'ado kale ay warbaahinta Soomaalida marka ay siinayeen qiyaastii dhowr iyo 40 kamid ahaa suxufiyiin meelo kala duwan ka kala yimid ayaan ku wada jirnay waxaan ka xasuustaa inaan dunyo isku baranay meesha dunyo waxaan si gaar ah ugu xasuustaa inay ahayd qof markaasi si gaar ah wararka uga soo tabin jiray ama warbixinada uga keeni jiray dadka danyarta ah gaar ahaanna dadka barakacayaasha ah ee magaalada Muqdisho ku soo barakaca sida kuwa gobolada dalka ka yimaada ama kuwa ku barakaca gudaha magaalada Muqdishoba sidoo kale waxay wararka ka keeni jirtay caruurta ama dhalaanka yaryar ee aan ehelka lahayn ama wadooyinka ku nool oo iyagu iska tabaaleysnaa oo ay warbixino ka soo sameyn jirtay iyo dadka kale ee dhibka markaasi haysta oo ay soo bandhigi jirtay dunyo waxa lagu xasuustaa inay ahayd bulshaawi howlkar ah oo firfircoon isla markaasna diiradda saari jirtay sidii u soo gudbin lahayd dhibaatooyinka dabiiciga ee ku habsada bulshada iyo kuwa kale ee loo geysto sidoo kalena waxay soo bandhigi jirtay dhibanayaasha iyo dadka danyarta ah ee codkooda uusan gaarin meelaha fogfog waa maalin xusuus adag ku leh qalbigayga waayo waa maalintii ay geeriyootay walaasheen
duniya muxiyadiin nuur allaha u naxariiste oo ay ku geeriyootay gacanka xaq daran duniya oo ahayd gabar aada u firfircoon oo ka dhex muuqata miidiyaha magaalada muqdisho duniyo iyo aniga iyo iyada waxaan ka wada tirsanayn idaacadda Horn Africa iyo waliba idaacadda Capital Voice anagoo isku barnaamij ahayn barnaamijka muqdisho iyo maanta ka bixi jiray idaacadda Capital Voice oo uu soo saar ka ahaa Allah u naxariistay walaalkay Mahad Axmed Cilmi oo isagana aan barnaamijkaasi iskala qayb qaadan jirnay duniyo aniga iyada markasto xiriirkeena aad ay u wanaagsanaa waana wada tashan jirnay waxaana ka tashan jirnay barnaamijyada aan soo saarayna tayadooda iyo sida aan barnaamijyada dhinacyada kala duwan aan uga gal lahayn maadaama barnaamijkaasi muqdisho maanta oo ahaa barnaamij 3 saacadood soconayay subax walbana laga dhageysan jiray guud ahaan magaalada muqdisho aan ahayn labada qofood ee barnaamijkaasi magaalada barnaamijyada ka soo aruuriyo oo keena halka Mahad Axmed Cilmi oo soo saaraha barnaamijka ahaana uu noo fadhiyo xarunta oo isagana halkaasi waraysyada iyo barnaamijyada aan keeno isku dheelitiri jiray waxaan xasuustaa inay ahayd qof ilaahay uu ku manaystay dabeecad wanaagsan dulqaad badan dad dhaqan wanaagsan isla markaasna markasta faraxsan oo maalina aadan arkaynin iyadoo la leeyahay qof baa la kala qabtay ama meel xun ay kala gaareen arrintaas oo dhanna waxaa sabab u ahayd dulqaadka ilaahay uu ku manaystay arrinta labaad ee muhiimka ah ee aan ku xusuusto waxaa ka mid ah sida aad la socotaan Horn Africa waxay ahayd warbaahin aada u falanqeysa kana hadasha arrimaha siyaasadda dalka door weynna ku lahayd duniya waxay ka mid ahayd wariyaasha aan inaba danin arrimaha siyaasadda oo aadan arkaynin maalinna iyadoo arrimahaas ka hadlaysa ama warar iyo barnaamijyo ka sameynaysa waxay ku mashquulsaneed waqtigeeda ugu badnaa intii ay warbaahinta ku jirtay ay gelin jirtay inay cod siiso dadka aan codka lahayn oo ay ka mid yihiin ama ugu badan yihiin dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya dadka xanuunsan dadka dhibaatooyinka gaarka qaba si codkooda ay usoo bandhigtay isla markaasna ay u tusto dadka Soomaaliyeed raba dadkaas inay caawiyaan duniya waxyaabaha aan ku xasuusto waxaa ka mid ah inay ahayd qof aada howlkar u ah taqaano hadafkeeda waxa ay hiigsanayso jecel inay maxaa la xirfadeeda saxaafadeed aada u horumariso inta badan waxay xoog saari jirtay inay u hadasho dadka dulman dadka dhibaataysan in ay bulshada ay ku dhex nooshahay magaalada muqdisho oo waagas ahay bulsho kala xirxiran oo uu ku cusub yahay miidiyaha iyo in dadka baahiyahooda ay sheegtaan ama dhibaatooyinka ay qabaan markaas ama lagu hayo ama dhib loo geystay in ay dadka la hor imaadaan u cusbaa waxay ahayd qof jecel inay dhex gasho oo dadkaas ay cod ka soo saarto waana sababta markii ay geeriyootay xarunta Horn Africa muqdisho anigu xilligaa waxaan ku sugnaa marko waxaan ka mid ahaa dad ka soo carray magaalada marko si ay uga qayb galaan aaskeeda laakiin markii aan nimi runtii xarunta meel la kala istaago waa la waayay dad waxa soo buuxiyay dadkii ay sheekooyinka kala duwan ka qori jirtay qaarkood dhibaatooyin haystay ay kala shaqeysay sidii looga dulqaadi lahaa kuwa ay u sahashay inay noloshooda isbeddel ka sameeyaan runtii waxay ahayd saxafiyad daba oo ay tahay inay qalbiyadeennu ku jirto oo ay tahay inaan ka reebno taariikh intaa ka badan aniga run ahaantii aad baan waxaan u jeclaa jiray barnaamijyada ay ka keentay magaalada ayadoo soo wareysata dadka aada iyo aad u dhiban in aan barnaamijkaas aniga aan ka duubo isla markaasna dareenkayga aad bay u daawanayeen barnaamijyadeeda anigoo dareemaya in ay tahay gabar shaqada ay hayso aada ugu kalsoon jecelna in ay mar waliba bulshada ay u soo bandhigto qof walba ee dhiban waxay ahayd gabar aada loo xushmeeyo ayadana aada xushmaysa dadka madaxdu aad bay u jeclaayeen wax soo saarkeedana aada bay u fiicnaa duniya muxuudiin waxaa lagu xasuustaa inay ahayd gabar da'yar akhlaaq badan dadka maqasha kana tala qaadata duniyo weligay ma arag iyadoo qof saxaya intay nala shaqaynaysay qofka wanaagsan waxaa la yidhaha mar qaarkood ma raano inkastoo waqtigeeda uu galay duniyo weliba waxay ku jirtaa qalbiyadeena duniyo waxaa ani iyada naga dhexeeyey xiriir walaaltinimo iyo xiriir wada shaqayn maxaa yeelay wax kasta oo caqabada oo duniya lasoo kulmo
way iisoo gudbin jirtay waana ka wada tashan jirnay sideedoo kale markii caqabad ay qabsatana waa u sheegi jiray iyadana waa tala ay iga siin jirtay duniyo waxaan ka bartay dabeecad wanaagsan oo ay ka mid ahayd sabarka oo ay igula talin jirtay mar walba inaan sabro in aan maarkino dul qaato marka duniyo taariikhdeeda halkan kuma soo koobi karo runtii marka duniyo waxay ahayd qof aad iyo aad noogu weyn ayay ahayd allah u naxariisto ilaahay subxaana watacaala ayaanu uga baryaynaa inuu naxariistii janno oo ka waraabiyo iilkana ugu waasiqiyo runtii duniyo lama soo koobi karo dee wax badan maarata aad u wanaagsan ayay ku lahayd roolka bulshada saxaafadda iyo dhinac kastaba markay noqoto yani waxay ahayd gabar yar oo aad iyo aad rool aan inaba la qiyaasi karin ku lahayd waqtigaa ama xilligaa saxaafadda ama marxaladu sida ay ahayd xilligaa magaalada muqdisho iyo weliba kaalinteedii yani bulsho marka la fiiriyo qof muuqata oo aana caad iyo calacal midna qari karin waxaan ku xusuustaa inay ahayd gabar howlkar ah gabar dadnimadeeda iyo shaqadeeda oo inta badan arrimaha bulshada iyo waxyaabaha ka qarsoon saxafiyiinta kale ee markaasi aanay haleelin ayay aad u haleeli jirtay waxaan ka xusuustaa waxqabadkeeda in ay soo saartay dad bac lagu gubay oo cisbitaalka madiina markaasi la geeyo oo weliba ahaa dad shaqaale ah markaasi lacag aan badnayn ku shaqaynaya ballamo badan oo maalintaas noo yaalay markaan dib usoo xasuusto duniya waxaan dhahaa qadarkeeda meeshaas geeyey waxay ahayd waxaa u qorneed inay halkaas ku dhimato gacan ka xaq daran iyo disho iyadoo qof da-yar ah weliba oo nolosha ay cusub tahay duniya dadka ma hilmaami doonaan sababtoo ah fursad lagu hilmaamo dadka ama qalbiyadooda ay uga baxdo maba jiri karto sababtoo ah qof walba oo maxay ahayd dhagaysan jiray barnaamijka hoodi allah u naxariistay mahad axmed cilmi ay isla wadi jireen barnaamijkeedii maxaa lahaa muqdishiya maanta ay soo tabin jirtay kulli waxay ahaayeen barnaamijyo dadka aad ugu tixnaa jireen duniya waxay ahayd walaal aad qaali u ah jecel shaqaalihii meesha kala shaqeyn jiray qof firfircoon shaqadeeda aad ugu hufan u jecel ayay ahayd duniya weligeen ma ilaawi doono waan xasuusnaan doonaa runtii waxay ahayd qof nabadoonada marka si loo eego wariyaasha wiilal iyo gabdho ay ku dhex jirto waxay ahayd qof aan jeclayn inay isqabsadaan waxay ahayd qof isku soo dhawaysa labada ishaya dabeecad ahaan ayay u abuurnayd qof runtii macaan oo wanaagsan oo sharfoon bay ahayd dhanka kale shaqadeeda iyo xirfadeeda waxay ahayd qof tabisa oo xoogga saarta ka hadalka dhibaatooyinka haysa dadka aan codka dheer lahayn duniya waxay ahayd gabar dhalinyaro ah weli aan guursan curdin ah wax baratay jecel wadankeeda inay wax u qabato dadkeeda inay caawiso ayay ahayd ilaahay ma qorin intii ugu filan dadka way usoo qabatay waxay ahayd qof u dabacsan una naxdo inta dabarta daran miidiyaha ay ka shaqaynaysay kaliya bariiskeeda kama raadsan jirin waxay uga faa'iiday jirtay inta dhibaataysan inta codkooda uu dahsoon yahay uu hoos jiro ayay bannaanka soo dhigi jirtay duniya ciddii taqaanay oo dhageysan jirta xilligaas way yaqaanaan waxay ka hadli jirta xaaladaha bini'aadanimada u naxariisto ilka nicaawud gooliya eebaha ku siiya naruuro duniya muxiidiin nuur waxay ahayd gabar aad iyo aad xasuus weyn inagu leh haddaan ahayn haddii aanu nahay shirkadii warbaahinta horn afrique qeybaheedii kala duwan shaqaalaheedii ka shaqaynayay waxaan leeyahay duniyay qabrigaaga ilaahay kaaga dhigo rawda min riyaadul janna biidnillaahi kariim kii ku dilay ee xaqdarrada kugu dilayna jaasadiisa ilaahay daa'inka ahaa ha siiyo maalinta qiyaamo annagana samiriya iimaan saadiqa allah naga kaa siiyo waad naga tagtay bar madow ayaad ku noqotay qalbigeenna balse ilaahay godkaaga ha kaaga dhigo jannadii firdowsa dhammaanteen allaha naga wada sabar siiyo si gaar waalidiinteeda waxaan leeyahay qof bulshada dhan wada tagaysa ayaa idinka baxay maantoo kaletood oo 5 juun maalin ah hilmaami doona ma ahan bahda warbaahinta Horn Afrique oo dhanna si isku mid ah ay arrintaasi ay uga falciyeen naxdintaasi waxaan ilaah ugu baryayaa mar kale inuu jannadii ka siiyo qoyskii gaar ahaan ay ka baxday guud ahaan bahda warbaahinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan
daba duniyo laguma soo koobi karo waxtarkay u lahayd bulshada iyo sidii kaga dhex muuqatay muuqaalkan hase yeeshee waxaynu leenahay allah u naxariisto oo marti la jecel yahay allaha ka dhigo intii ay nooleed uu ilaahay waafajiyo waxay ahaayeen kuwa ay alla la hortegayso ilaahay ha u naxariisto duniya muxidiin nuur dhammaanna waan uga tacsiinayaa qalbiyadeena 15 beri ka hor inay dhimatay oo kale ayay ugu nooshahay maalin qalbigayga dunya kama baxdo mar walbana waa u duceeyaa ilaahayna ha u naxariisto allaha casiiska ah raxmadiisa ha siiyo janno firdowsa allah ka waraabiyo walaasheen duniya muxidiin nuur allah naxariisto duniya qabrigeeda allah u waasiciyo jannatul firdowsna allah geeyo annagana gadaasheeda ku ifidnoo allah nagama dhigo waxaan alla ka baryaa inaan aniga iyo inta kale ee walaalahay ah iyo duniyaba aan ku wada kulno jannatul firdowsa insha allah waxaa kaloo halkaan ka xuseynaa dhammaan wariyaashii lagu dilay dalka Soomaaliya oo ay duniya ugu horeysay kuwii ka shaqeeyay idaacadda Horn Afrique ay kamid ahaayeen Mahad Axmed Cilmi علي إيمان شغلك سعيد تهليل أحمد أكيد يقال كربلاء واحد ما سنتين إن أنا دعوت برنامج كان قاكرة إنكستو وقت قابل أما وقت يابو سو دياري هذا وحاو كتب جمعيات سيدا أنا قلبيات أنا قلت لي كريم لما مرياشي بلاسو شقي انت لما تي الله ونحرستو جنة فردوسانا الله كورابيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته